munaasabad ballaaran oo xilka kula wareegayay gudoomiyaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay degmada Arabsiyo injineer Sugaal Xuseen Barkhad isla markaana uu xilka kala wareegayay gudoomiyihii hore ee degmada Arabsiyo Dr. Xamse Saacad Muuse ayaa ka qabsatay hotel Rumaan ee degmada Arabsiyo munaasabadan oo xilka uu kala wareejiyay labada gudoomiye barasaabka gobolka Gabiile Xamse Saacad Muuse wuxuu noqday gudoomiyihii labaad ee loo ooyo waxaan leeyahay Xamse Ilaahay idamkii meesha meel ka sareysa ayaanu kuugu ducaynaynaa waana lagu wada duceeyay Xamse waxa sheegi doona Xamse Saacad taariikhda sheegi doonta fikir dheer buu lahaa wax qabad badan buu lahaa maxay haday aqoon buu lahaa inuu magaalada wax ku soo kordhiyo wax ka bedelo 90% ayuu doonayay wixii uu qabtayna uu qabtay Sugaal waxaan leeyahay waanu ducaynaynaa horta waxaan leenahay soo dhawow iyo Xamse isku xigay imagana Sugaal waa gudoomiyaha afraad inta degmada joogto waxaan leeyahay gudoomiye ku soo dhawow waxaanu hiil iyo horba ku garab taaganahay degmada Arabsiyo iyo gobolka Gabiile dhamaantii inta joogta uqaal ahaan odaynimo waxaanu ku amaanaynaa intii hawsha joogay waxyaabihii wanaagsanaa uu ka qabtay magaalada calaamad bay ahaanaysaa way u suntan tahay waxa weeye nin walba wixii uu qabto way suntanaanaysaa nin walba wixii uu qabtaa nin walba wixii uu xumeeyaana way ku suntanaan doontaa waxaan xilkuna runtii waa wareegto degmada inagu ma lihin laakiin shacabka ayaynu nahay shacabku waxay mar walba helayaan wixii gudoomiyaha yimid ka tago gudoomiyuhu tagayaa wixii wanaagsan dadku uga tagayaa wixii qaldan ee lagu ceebeynayana yar buu la tagayaa hadday jireen waxna lagu dhaliilayay waanu la tagaynaa aniga Xamsaba laakiin waxaanu ka tagaynaa wixii aanu qabanay waxa weeyaan Arabsiyo intay degmada noqotay waxba u kordhay maalin walbana waxba u kordhi doona Sugaalna waxa leeyahay ciyaalkii Arabsiyood anu waxa garay Sugaal oo yar Xamse wuxuu ahaa nin hawlkara nin dhalinyaro oo wuxuu ahaa dhiiran waxaan qabsanay intii aanu degmada ila joogay waxyaalo badan baan qabsanay aanu qabanay haddii aan hal ka ilaahdo Xamse wuxuu ahaa isagoo aan gudoomiye ahayn ninkii aasaasay librariga maantana meel fiican buu marayaa nasiib wuxuu u helay in iyadoo la dhagax dhigay maantana uu ka tagay oo halkaasi cusubna waxaan leeyahay waan ku soo dhawow nin maanta magaaladeena ama degmada gabi ahaanba nin isku waday waxna ka qabtay wax muuqdana qabtay inaynu u wada qirayno inaynu u ducayno oo nisagootina gudoomiyaha cusubna inaynu soo dhaweyno baa meesha taala laakiin maalintii hore Xamse Saacad iyo Xamse Xuseen waxaan nidhi nin aan abti u ahay iyo nin adeero hayba maanta xilka kala wareegay maantana nin aan adeero u ahay iyo nin aan abti u ahay waa xilka kala wareejinaya horta sidaas ay Arabsiyo dee meeshaan soo qaataaba waa gudoomiyaha dadkaygu iyo wixii aad qabatay intaad magaalada joogtay iyo fikirkii aad xambaarsanayd iyo wixii niyadaada ku jiraan u qabatidba wixii aad qabatay in Ilaahay ka abaal mariyo wixii dambe waxaan rajaynaynaa ninka ka dambeeya ee ku bedelaya inuu halka ka sii bilaabo taasi oo maanta xilkii Arabsiyo mar hadduu soo maray u jaranjartii dawladda soo galay uu ka sii dalacayaa waanu socon doonaa ilaa heer qaran qofku uu daayar yahay waqtigiisa iyo jaaniskiisina uu banaayo oo haystaa tan iyo meel fiican buu gaarsiin karaa waxa la leeyahay daafurnaanta kula shaqeeya garab istaaga haddii aan la isku duubnaanin waxba qaban kari maayo isaguna waxay ahay degmada Arabsiyo degmo shaqooyin badan ka socdaan walaalkay iga horeeyayna shaqooyin badan uu qabtay wax badanna markaa qabiyo u ahaayeen aniga qudhayduna waxaan haystay markaa vision iyo mission ka duwan visionka iyo missionka markaa meesha lagu maamulayo kaasina wuxuu ahaa ka keenay in hanqalkayga ama hankayga iyo higsigayguba noqdo inaan degmo Arabsiyo maamulo marka horena shaqooyin badan sidoo xogayuu ka dhawaajiyaan ka hay waxa uu mahadnaqaya madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland golihiisa wasiirada gaar ahaan waxa uu mahadnaqaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ii gartay inaan noqdo gudoomiyaha degmada Arabsiyo ee ugu faraca weyn waxaan bulshadeeda iyo qiimaha iyo qaayaha badan ee degmada Arabsiyo u sheegayaa oo aan u cadeynayaa inaan taladiina ku shaqeyn doono aan noqon doonin nin taladiina ka maroorsada anigu waxaan runtii ka marxaati kacayaa gudoomiyaha hore ee degmada Xamse Saacad Muuse inuu runtii si wacan u soo shaqeeyay nin mas'uul ahaa hawlkar ahaa mas'uuliyaduna waa qoriisu dhib maalinba qof baa imaanaya qofka yimaada sida wacan loola shaqeeyo bay tahay gudoomiyaha cusub ee Sugaal
na waxaan leeyahay ku soo dhawow guddoomiyaasha gobolka gabiley وموسى حسين حسن تلفزيون كعالمي 5 TV دقمة عرب سيوي قبل كقبيلي